dhammaan shacbiga Soomaaliland oo dhan waan salaamayaa meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba marka labaad arrinta Coldoon waa arrin laga dharagsan yahay si gaar ah u taabanaysa dhammaan dadka muslimka iyo shacbiga reer Soomaaliland labadaba si gaar ah u taabanaysa marka ugu horeysa waxaan mahadnaq u jeedinayaa waxaan balyo u dirayaa maxkamadda gobolka Hargeysa xukunkii ay soo saartay ee ku cadaysay inaan Coldoon wax dambiya oo loo haya ama lagu helay aanu jirin dambi la'aan yahay xukunka iyo qaraarka na ku riday inuu kadinka ka baxo tawan hambalyeynaya Coldoon laba qodob baan ka oranayaa qodob waxaan ka oranayaa hay'adaha ammaanka oo booliisku ka yahay oo dambiyada ku soo oogta dadka waxyaabo badan oo qaldan oo bini'aadamkeena iyo aqoon ahaan iyo diin ahaan meel kaga dhacaya inay aad uga fiirsadaan baa haboon dariiqyada la marayaan anigu waxaan u haystaa ciidamada ammaanku ama booliisku ay marayaan waxaan u haystaa dariiq aad u khaldan Coldoon wax kasta ha yiraahdee gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco ayuu joogay halku ka hadlay halkaas ay ahayd gobolka Togdheer dalku ka mid yahay ciidamadii booliiska jooga maxkamadii baa jooga shacbigii baa jooga eelkiisii baa jooga in 500 kilomitir inta laga soo qaado laga soo fogeeyo Hargeysa la keeno isagiyo qeyrkii toona waxa aadan noqotay qofka dangaara laga leeyahay ilaa Hargeysa in la soo qaado arrintaas waa arrin qaldan gobolada dalka ay ka mid yihiin Hargeysa inay 20 jir u noqoto oo qofkii dan laga leeyahay ama la saanood laga soo qaado ama boorama laga soo qaado ama burca laga soo qaado Hargeysa la keena dawladnimadeena iyo jiritaankeena meel ka dhacda waxaan tilmaamaysaa in Hargeysa laga dhigtay meel dadka lagu ciqaabo gaar loogu torjargaray way burcado maxkamadu way joogan boorama maxkamadu way joogan erigaada maxkamadu way joogan hadii qofka dambi loo sheeganayo meel gurigiisa iyo ehelkiisa u dhow oo ay maxkamadiisa iyo kiiskiisa kala socdaan de in lagu maxkamadeeyo dalka ka mid tahay laakiin ilaa Hargeysa la soo aro waxaan arkaa talaabooyin qaldan oo foolxun oo systemka uu isticmaali jiray dawladda Maxamed Siyaad Barro kala kamida in qofka Hargeysa inta laga qabto ama gobolada kale dalka laga qabto 20 jir oo la geyn jiray arrintaas waa arrin qaldan qodobka labaad Coldoon wuxuu ka hadlay macallimiinta wax ka dhigtay iskuulladeena qaar kamida sida iskuulka Abaarso kale wuxuu ka hadlay dadkaas inay mushiikh diinta Kiristaanka aan ku ah inay fidiyaan oo wadaad inay yihiin taamron kama joogo waxaan aad u dhageystay hadalkii Sheekh Maxamed Ismaaciil ilaahay raaliha ka noqdo Sheekh Maxamed Ismaaciil ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro Sheekh Maxamed Ismaaciil Allah barakeeyo sifa faafaasan oo waadixa oo diin oo Qur'aan iyo xadiis ba uu inagu tilmaamayo ayuu dhacdada Coldoon uga hadlay Sheekh Maxamed Ismaaciil oo tilmaamay inuu dulmiye baadil ku xidhan yahay oo tilmaamay inuu xaq darro ku xidhan yahay Coldoon oo tilmaamay sababaha loo haysto oo tilmaamay cidii uu Coldoon ka hadlay waxay tahay iyo waxay aaminsan tahay iyo waxay ka shaqeyso inta Sheekh Ismaaciil baa tilmaamay jay Ciise inay wadaad diinta Kiristaanka fidiyo tahay muran kuma jiro in la yiraahdo caruurteena yey wax u dhigin anigu dambi uma haysto xaq baan u haystaa diin baan u haystaa wanaag baan u haystaa haddii culimada Soomaaliland arinta ka hadli weydana wallahi qiyaamada iyaga la weydiinaya wala xisaabtamaya wallahi wala xisaabtamaya wala laga weydiinaya ilaahay waxba weydiinaya Sheekh Maxamed Ismaaciil baa sheegay wuxuu yiri hadii aniga caruur Kristaan la ii dhiibo la yiraahdo wax u dhig oo ama saynis u dhigo ma xisaab u dhig halkan ka bilaabi lahaa iyo inaan diintiin ilaahay ku xidho lahayn u sheegi lahaa daacad kuma jiro dawladda Kiristaankana marka la yiraahdo caruurtaada wax u dhig inuu diintu fidinayo u sheegayo idna kama qarsoona culimada Soomaaliland waxaa leeyahay war sidaa Sheekh Ismaaciil arrinta ka hadla baadilka waxaan ka cabsanayaa in laynagu rogo oo dunubi lagu timaado waxa abaarta iyo roob la'aanta iyo haraadka maanta la sheegayo in waa loo dhimanaya sabab ah inaynu xaq Ilaahay iyo diinta Ilaahay difaaci weyno oo aan ka hadli weyno xaq oo culimadeenu xaq ka hadli weydo culimadu xaq ka hadasho
وشدا الشيخ محمد إسماعيل حعديسو علدون إنه بادل يا حق درجو حرية قف كستا أنقنا تعلدون يريت الشيخ محمد إسماعيل يمي أيان لقبنا معلم وذاده ودين الإسلام كفدنا أو شيخ وداعي كوا دين كريستانكو إنه عرورتين وحدقة حرام بيت أنتوا علدون كحرينا وحرام وحنا نعطسنا أو نبورينا إن السيدة يعلدون وفرح لقى قاضو وحرقا حق درلا وإنتي وحدنا وحبسي كوشرنا عدي سببتي لها الأمر كذا بحيثي إنه يصوحدو لقوا لا حسابته وحقوق دي سعادي قاعد لقوا بعض دونه ولماذا أرنتا إنك هذا شو أنت أسانكو كردين لها أنت أسانكو لها شعبك السومالي لنا وحليه وردلمك يحق درلا ديلا والله مدحوينها السومالي مدن المصبيحي وحمد دريا فرين مستيحة ودك أنا أوفى إذا أدنى أجرات كهل الدونتو ومضبط إنه يقولوا علوب الدونتو أبي الله افتضل إن لغاية لا إن لغاية لا ما يجابه ما هي تفرين تاس أنا ودن كان كوبي سجاير شنكي يوحي كوري يوحي كدم بيبان وبلغي من دبد بحمي حاج أنت غير مويان ودن كان يوحو قرب الدوبيهي جيد قاد لي راحته يدك سيده حيوانك داقيه انا way qeyraaban maaye dadka sida xayawaanka daaqaya ajilka afka ku haysta ay wadankan u garbadoobay yahay muuso aba maanta madaxweynihii waa heli karaysa hadii aad inta qayirayso oo dhan xukuumadda ka saarto iyo dawladda ka saarto waa heli karaysa kumaankum jaamacada ka soo baxay oo wada mutacallimiin oo wada masterate oo jaamacad caadi oo ilaahay ka cabsanaya oo markii ay jaamacadaha ka soo baxeen magaalo walba suuqa oo fadhiyo oo maqaadaha fadhiyeeraysa oo qayilin waxaan markaa maanta aan codsahan ku soo jeedinaya nasteexan ku soo jeedinaya inaad ka joojiso xukuumadda Soomaaliland dadka qayilaya ee xafiisyada fadhiya hadhowna ku rawaxaya majlisoodii waaweyna ee oodaha ay ku cunayeen oodaha dhaadheer ay ku cunayeen wadadooda iyo burinta wadan baabinta wadankan halka laga dhoreeyay taas waxa weeyaan waxaan leeyahay cidii doonta aniga hay soo aflagaadayso cidii doonta aniga waxay doontaa ay samayso laakiin waa laga maarmaan sheego hadawladuna haday ka wardaan iyaga nasiibkood taas waxa weeyaan ninka ku qayilaya cashuurta islaanta suuqa fadhida ee taayayada iblis ka kaariyona riixaya ka oosha deer haysta ka maxayga wixii laga soo ururiyay ninka ku qayilaya ee ku weyn ee maartay waliba libaax ka dhigaya majlisada markuu fadhiyo isaga saaxiibadii Robert Oranere yana meertada wasiirka Hargeysa joogay waa nooc cajiib waaween marna waqaadkii raadintiisii iyo dayrada Mansoor iyo ambassador laga soo cunayo iyo booska dambe oo hadhow lagu seenaa gaafirinta lagu soo gurayo caleentii dhaadheereed iyo majliskii la tagayay iyo ilaa wasa loo fadhiyo dawladna bariis sagaalka xafiiska la yimaado dawladna saaxiibada uu la sheekaysto dawladna iska tago meertada Soomaaliland ka socotay waa taas من متعلمان هاي أنو من شيخان هاي قف ضميره وضني هو وحدريما يانا هاي وحن لها هاي حولها لو قيلة هو بلا شقة